shirkeena jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay dhacdo ka dhacda shalay oo taariikhdu ahayd 9kii bisha 12aad 2020ka gobolka Galgaduud dhacdadaas oo lagu waxyeeleeyay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 12aad waxaan leeyahay awal inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo eheladii iyo asxaabtii ay ka baxeen saraakiisha aadka iyo aadka u qiimaha badnaa aan uga tacsiyeynayaa oo leeyahay ilaahay samir iyo iimaan dhamaanteen hanaga siiyo runtii waa fal aad iyo aad u xanuun badan waa fal aad u foolxun waa fal aysan ku kici karin qof muwaadinu aysan ku kici karin waa wax aad nasiib darro ah runtii kuwa yar oo fikirka argagixisada xambaarsan inay samicna darro ah saraakiishii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee u dhaartay inay bulshadooda sharafkeeda iyo karaamadeeda iyo tan qarankaba ay ilaaliyaan ay muxuu ahaa ii sheegay ugaarsadaan oo ay samicna darro ah runtii meel aysan marnaba aysan ku fikirayn ay ugu laayaan oo ay ku dhintaan dalka Soomaaliyeed wuxuu wada howlgallo muxuu ahaa ii sheegay nimanka sharwadayaasha ah ee saraakiisha dhibaatada u geystay ee lagu baacsanayo meel alaale iyo meesha ay galaanna waa looga daba tagi doonaa ciidamaduna waxay u heestaan waajibaad qayaxan ayay u heestaan hawsha inay fuliyaan sida ugu dhaqsiyaha badan ilaahay idinkiisa waxaan rajaynayaa inaan sharciga ku horkeeni doono haddii ilaahay ogolaado